daawada isku soo noqod wanaagsan filimkan wuxuu ku bilaabanayaa gabar lagu magacaabo Mayna iyo nin la yiraahdo Charles. labadan qof waxay ahaayeen laba qof oo ganacsi ku share garoobay aad bay u faraxsanaayeen markan maxaa yeelay waxay faa'iido badan ka heleen ganacsigoodii si ay ugu dabaaldegaan farxadan. waxay qorsheysteen inay dalxiis aadaan guri ayay kireysteen oo badda dhinaceeda ku yaala. isla mar ahaantan Charles walaalkii oo ah ninka qaba gabadhan lagu magacaabo Mayna wuxuu yimid xafiiska soo soo kaxisto haaskiisa Mayna. waxay aadeen gurigooda. Charles sidoo kale wuxuu aaday gurigiisa halkaas oo aanu kula kulanay xaaskiisa oo ah qof aad u qurux badan. waxay ku wada noolaayeen nolol aad u qurux badan Charles iyo xaaskiisa. Charles wuxuu ahaa ganacsade guuleystay. Charles uu aad uga walaacsan yahay walaalkiis. walaalkii waa darawal baabuurta wada oo mar ayuu galay jeel kadib markuu si xun u dilay nin oday ah, laakiin hadda waa nin nasiib leh sababtoo ah wuxuu helay Mayna oo ah gabadha sheerta la ah oo wax badan ka bedeshay isaga. aad bay isugu faraxsan yihiin hadda. sidaan ognahay waxay qorsheysteen safar dalxiis waa sababta Charles u yimid halkan si uu ka xayo walaalkiis iyo Mayna. subaxii hore maalintaas dadkan intay jidka ku jireen aad bay u sheekaysanayeen waxayna gaadheen halkii ay u socdeen. gurigan oo ku yaala xeebta dhinaceeda wuxuu ahaa mid aad u qurux badan. markan mulkiilaha guriga ayaa kala baraya guriga ay degayaan markaas. halkan marka ay sheekadu marayso xaaska Charles waxay soo xasuusanaysaa inay telescope-keedii ku soo ilowday guriga, laakiin mulkiilaha guriga ayaa ku yiri hawarwarin anaa haya telescope. hadda Charles iyo xaaskiisa waxay bilaabeen inay guriga ku diyaariyaan cunto halka Mayna iyo ninkeeda ay bilaabeen inay guriga soo eegaan dhinacyadiisa. waxay heleen qol qariib ah oo ku yaal gudaha guriga kaas oo albaabkiisa lagu xidhay full password ah. dadkan aad uguma fiirsan arrintaas. waxay markan u yimaadeen inay ku lugayaan badda dhinaceeda kadib waqti dheer oo ay banaanka ku soo qaateen. waxay ku soo laabteen guriga. markay guriga ku soo laabteen waxay heleen telescope-kii oo guriga la keenay, laakiin Mayna ayaa arrintan ka xanaaqday iyadoo leh sidee buu mulkiilaha guriga nooga yimi isagoo aan fasax naga qaadan sababtoo ah waanu kireysanay guriga. laakiin asxaabtii kale arrintan ay u sheegaysay waxba kama soo qaadeen arrintan oo muhiimad ma aysan siinba. hadda dadkana waxay bilaabeen inay casheeyaan waxayna xaaska Charles u sheegaysaa inay subaxdii aadi doonaan meelaha qurxoon ee badda dhinacyadeeda ku yaala. meeshan runtii aad bay u qurux badneed wax badan ayayna u qorsheysteen fasaxan. markan xaaska Charles waxay dhammaantood kaga yaabsanaysaa lama filaan ay u hayso. xaaska Charles waxay tustay budo kiimika ah oo awood leh. qof kasta wuxuu aqbalay inuu qaato budadan kiimikada ee awoodda badan, laakiin xaaska Charles ma aysan isticmaalin sababtoo ah waxay rabtaa inay goor hore kacdo subaxii si ay u aado biyo dhacyada badda caarigeeda ku yaala. wayna seexatay. isla mar ahaantaas asxaabtii kale waxay u soo baxeen barxadda ayagoo qaadanaya budada kiimikada ahayd ee Charles xaaskiisa siisay. Charles wuxuu ka faakarayaa inuu cabo khamri wuxuuna u dirsaday dhala khamriya walaalkii gudaha ayuuna ka doonay dhaladii khamriga ahayd. isla mar ahaantaas Charles wuxuu sugay muddo dheer walaalkii maadaama uu u dirsaday dhala khamriya, laakiin ma imaan isla markii. Mayna ayaana go'aansatay inay raadiso isaga. wuxuu ku soo daahay laakiinse waxay u timid isagoo hurdo dheer ku jira. marka ay ka soo laabatay Charles ayaa daboolka ka qaaday shower biyo kulul ku jiraan oo markaas meesha lagu diyaariyay. waxa uu sidoo kale ka codsaday Mayna inay gasho biyahan kulul wayna ka ogolaatay. isla mar ahaantan labadaba aad bay ugu faraxsan yihiin showerkan kulul ee ku dhex jiraan. waxayna sidoo kale ahaayeen kuwa wada sheekaysanaya markaas. inta ay sheekaysanayeen dadkana aad bay isugu soo dhawaadeen xataa ma garanayn waxa dhacaya ayagu sababtoo ah ma ahayn dadkani kuwa maskaxdoodu joogto. intaas kadib eeyga Mayna ayaa halkan ku ciyay. labaduba waxa uu soo laabtay miyirka. Mayna biyihii kululaa ee showerka ayay ka baxday halkaas isaga tagtay, laakiinse markan waxaan ogaanaynaa in qof meel fog uu ka eegayo labadan. intaas kadib Mayna waxay gashay suuliga si ay u soo qabaysato. Charles ayaa mar kale u yimid Mayna. intaa kadib waxaan aragnaa waagu inuu baryay halka oo aan ku aragnay Mayna iyo Charles oo aad u walwalsan halka xaaska Charles iyo walaalkii ay aad ugu faraxsanayeen inay tagayaan buuraha badda dhinacyadeeda ku yaala, laakiinse Charles iyo Mayna ayaa diiday inay aadaan goobtaas. xaaska Charles waxay raacaysaa Charles walaalkii si ay goobtaas u aado. hadda Mayna iyo Charles waxa looga tagay guriga kuwaas oo aad uga xishoonaya xalay wixii dhacay waxayna isla mar ahaantan ballan ku qaadayaan in wixii xalay dhacay dib dambe u dhicin. dhanka kale xaaska Charles iyo walaalkii waxay ku sheekaysanayaan dariiqa. waxay sidoo kale ku faraxsan yihiin safarkan. waxaan sidoo kale halkan ku ogaanay in qof uu daba joogo. dhanka kale Mayna waxay nadiifinaysaa guriga waqti xaadirkan
markii ay aaday suuliga si ay u soo qobeysato waxay ogaatay in kaamirooyin ku xiran yihiin shaawarka suuliga waxay si degdeg ah ugu wacday Charles wuxuu baaray dhammaan musqulaha wuxuuna ogaaday inay jiraan kaamirooyin ku qarsoon musqulaha mayna waxay la tahay in waxaas oo dhan uu sameeyay mulkiilaha guriga waxay ka codsatay Charles inuu waco booliiska laakiin Charles wuu diiday inuu u waco booliiska wuxuuna ku yiri haddii booliiska loo yeero markaas muuqaalkeena xalay qof walba wuu arkaya waana la ogaanaya wixii xalay dhacay aniguna ma rabo in xaaskayga iyo walaalka ay waxaan ogaadaan dood badan kadib waxay go'aansadeen inay iska ilaawaan wixii halkan ka dhacay isla marxaantan ay birisu halkan ka baxaan dhanka kale xaaska Charles iyo walaalkii sidoo kale guriga ayay ku soo laabteen xaaska Charles aad bay u xanaaqsaneed sababtoo ah Charles walaalkii ayaa u sheegay wax badan oo ku saabsan arrimihiisa waxayna ula dagaalsan tahay arrimahaas awgeed dhamaantood markan way walwalsan yihiin intaa kadib Charles walaalkii wuxuu ogaaday in eygoodu aanu guriga joogin kulligood waxay u baxeen inay raadiyaan eygooda kadib markii ay wax badan ka raadiyeen dibadda oo ay soo waayeen waxay ku soo noqdeen guriga ayagoo murugaysan intaa kadib xaaska Charles waxay u sheegaysaa asxaabta inta kale in meeshii biyaha ku jireen inaysan shaqeyneen oo biyuhu soconeen waxayna u yeereen mulkiilihii guriga mar alaale markay maqleen Mayna iyo Charles magaca ninka guriga way baqeen oo way naxsan yihiin markan Charles walaalkii wuxuu u sheegay asxaabta kale haddii uu ninka guriga yimaado waxaan weydiin doonaa eygeygii waxay la tahay inuu eygeyga isaga raacay Charles walaalkii ayaa markan hor weydiinaya eygiisa laakiin ninka guriga leh waxba kama oga eygaas hadda Charles iyo xaaskiisa waxay u kaxeeyeen mulkiilaha guriga barkadii biyaha kulul ku jireen inta ay ku guda jireen barkada iyo hagaajinteeda Mayna iyo ninkeeda ayaa mar kale u soo baxay inay raadiyaan eygooda ninkii guriga lahaa isna hawshiisa wuu dhameystay wuuna ka soo baxay guriga halkan ayuuna kula kulmay Mayna waxay bilowday inay ninkan ka shakido waxay weydiisay arrimaha kaamirada ee musqusha ku jiray ninkii guriga lahaa ma fahmin hadalkeeda iyo waxay sheegayso laakiinse Mayna waxay geysay musqusha oo ay tustay kaamirooyinkii ku xirnaa musqusha qubeyska ninkii guriga lahaa waxba kama oga arrintan isagana wuu ka xumaaday markuu arkay wuxuuna la soo baxay telefoon si uu waco booliiska laakiinse waxay u sheegtay in uusan u yeerin booliiska wuuna ka diiday wuxuuna ku adkaystay inuu waco booliiska Mayna waxay isku dayday inay telefoonka ka tuurto ninka mulkiilaha gacantiisa laakiinse wuu iska tuuray mulkiiluhu gabadha waxaana guriga laga dhex maqlay qeyladooda iyo burankooda Mayna iyo ninkii guriga lahaa Mayna ninkeeda oo ah Charles walaalkii ayaa u maleynaya in ninka guriga uu faraxumeynayay xaaskiisa wuxuuna bilaabay inuu la dagaalamo isaga oo uu garaaco ninkan mulkiilihii guriga ayaana halka ku suuxay Charles ayaa u yimid inuu qabto walaalkii haddana Charles wuxuu dhinac ula baxay weydiinaya waxa dhacay Mayna waxay u sheegtay inay weydiisay ninka guriga arrimaha la xiriira kaamirada musqusha ku jirtay laakiinse wuxuu u sheegaysaa inuusan waxba ka ogeyn ninka mulkiilaha kaamirooyinka musqusha ku jiray waxayna ku leedahay wuxuu rabay inuu waco booliiska arrintaas awgeed laakiinse waxaan ka hortagay inuu waco booliiska dhanka kale xaaska Charles ayaa u timi labadooda oo weydiisay waxa dhacay inkastoo xaaladda taagan ay xun tahay Mayna si ay u sharaxdo arrintan dhacday waa inay sheegtaa wax ku saabsan kaamiradaha musqusha ku xiran isla goobtan waxana la tusayaa nin oo daawanaya ayaga waxaba goobtaas ku jira kaamirooyin qarsoon oo duubeysa ayaga intaas kadib hadda waxa soo muuqda nin aan la garanayn kaas oo dilaya ninkii guriga lahaa oo suuxsanaa musqusha ku jiray dhanka kale xaaska Charles waxay aadaysaa gudaha si ay ugu wacdo mulkiilaha guriga ambulance halka Charles uu aadayay si uu hubiyo xaaladiisa mulkiilaha gurigan intaa kadib Charles wuxuu soo ordayaa dhankeeda inay joojiso wicitaanka wuxuuna u sheegay inuu ninkani dhintay dhamaantood waxay soo aadeen musqusha markan xaaska Charles waxay hubinaysaa garaaca wadnaha ninkaas waxayna xaqiijisay inuu ninkani dhintay Charles walaalkii xaaladiisa aad bay u xumaatay wuxuu rumaysan lahayahay inuu dil geystay Mayna sidoo kale way walwalsan tahay xaaska Charles markan waxay weydiinaysaa waxay sameyn doonaan wuxuuna Charles ku yiri waxaan gaaridan ka dhigi doonaa sida shil oo kale oo halkan waxaan ka tirtiri doonaa dhammaan cadeymaha dilka Mayna iyo Charles walaalkii ayaana fikirkaas ku raacay halka xaaska Charles aysan diyaar u ahayn waxaas oo dhan oo waxay go'aansatay inay wacdo booliiska waxayna ku andacoonaysaa inay xanuunka la noolaan karin nolosheeda oo idil laakiin Charles ma arki karo walaalkii oo xabsiga ku dhameysanaya cimrigiisa oo dhan taas waa sababta uu xaaskiisa ugu sharaxay halkaas oo hayo wuxuuna markan ka dalbanaya inay boorsooyinka u diyaariso ayaga si ay markii hawshooda dhameystaan oo ay cadeymaha u tirtiraan halkan uga baxsadaan intaas kadib markan waxay guriga uga tageen xaaska Charles saddexdii kalena waxay qaadeen meedka mulkiilaha si ay ugu tuuraan badda marka ay dadkani badda ku rideen meedka ninka guriga
meedku wuxuu ku dhacay buur yar oo buurta hoosteeda ku yaal halkii uu ku dhici lahaa biyaha waxayna ku dhufanayaan dhagaxyo waxay isku dayayaan inay meesha ka tuuraan markii uu meesha ka dhici waayay meedka hadda Mayna ninkeeda oo ah Charles walaalkii ayaa go'aansanaya inuu dego si uu uga tuuro meedka meesha dhankaas iyo guriga xaaska Charles oo alaabtoodii diyaarinaysa yaa maqashay dhawaaqa dhankaas iyo shaawarka suuliga ka imaanaya waxay hubisay dhammaan musqulaha guriga laakiin wax shaawar ah kama daarna suuliyada marka ay timid qolka fadhiga waxay la kulantay dhalada oo muuqaal la duubay laga daaray muuqaalkaas oo ah ninkeeda Charles iyo Mayna inta kadib waxay ka haysatay Charles xaaskiisa gaariga si ay uga baxsato meeshan isla waqtigaas saddexda qof ee meedka soo tuurayay guriga ayay ku soo laabteen Charles ayaa ka daba orday gaariga intay gaariga joojisay ayay tiri waxaan arkay muuqaalkaagii adiga iyo Mayna wax walba waan ogaaday hadda man rabo inaan kula noolaado inta uusan Charles waxba u sheegin halkaas ayayna ka tagaysaa oo gaariga ka sii wadanaysa isla mar ahaantaas Charles iyo Mayna waxay raadinayaan fiidiyowga ay guriga ku aragtay xaaska Charles anka kale Charles xaaskiisa ayaa shil gashay waxayna ka soo baxday baabuurka waxayna halka ku aragtay in dabin halka loo dhigay way ku naxday waxayna ku laabatay gaariga oo hadda waxay fariin u diraysaa Charles isla mar ahaantaas waxaan aragnaa nin u soo socda dhankeeda Charles sidoo kale wuxuu helayaa fariinta xaaskiisa u soo dirtay wuxuuna ka soo cararayaa guriga wuxuuna soo aadayaa dhankaas iyo xaaskiisa wuxuuna markan dul yimi gaariga oo muraayadu ay jaban tahay intaas kadib wuxuu wacay xaaskiisa wuxuuna keenta u dhow ka arkayaa telefoonka xaaskiisa oo ka dhacaya halka oo isla markii dhankaas iyo telefoonka iftiinkiisa meeshuu ka arkay soo aaday wuxuu dhulka ku arkay xaaskiisa oo taalo goobtaas oo madaxa lagala dhacay dubbe oo halka ku nafbaxday markan waxa si kadisa ku arkaynaa ninka wajiga soo duuban jiray oo Charles ku dilaya goobtaas dhankaas iyo guriga Mayna iyo ninkeeda waxay aadeen dukaankii qariibka ahaa oo bilowga filimkana lagu tusayay labadaba waxay go'aansadeen inay hubiyaan waxa halkaas ku jira waxa qolkaas ku jira markii albaabka jabiyeen oo ay gudaha u galeen wax gaar ah maysan ku arag goobtaas ma isla mar ahaanta Charles walaalkii wuxuu fariin ka helay walaalkii Charles wuxuuna ka helay cod oo u soo duubay iyo waliba muuqaalka Charles iyo xaaskiisa Mayna inta kadib Charles walaalkii wuu xanaaqay wuxuuna Mayna weydiiyay waxyaalahan oo dhan Mayna way baqday waxay isku dayday inay fahamsiiso muuqaaladaas looga soo diray nambarka walaalkiis laakiin diyaar u muusan ahayn inuu wax fahmo waxay dareemayaan in qof soo galay guriga wuxuu mooday in walaalkii Charles yahay guriga oo dhan buu ka eegayaa oo ka raadinayaa walaalkii isla markii uu furay albaabkii qolka store-ka ninkii wajiga u dumnaan jiray ayaa ka soo baxaya oo weeraraya wiilkii Mayna markay maqashay dhawaaqa ninkeeda way soo oraday xaqiisa ayayna soo aaday waxay la kulantay ninkeedii oo dhulka yaala oo dhaawaca hadda ninkan soo duubtay madaxa ayaa u soo dhaqaaqay dhanka ay Mayna ninkeeda oo dhaawaca ayaa isku dayaya inuu joojiyo ninkan isagoo lugta qabtay Mayna halkaas ayay ka carartay ninkii dilaaga ahna wuu ka daba tagay isla mar ahaanta wuxuu meesha ku arkay kabta Mayna oo dhulka taala kadib markii uu ka soo baxay guriga Mayna waxay ka baxday guriga si ay u badbaadiso nolosheeda laakiin waxa gadaal ka soo weeraray ninkii dilaaga ahaa sababtoo ah wuxuu ogaa in Mayna aysan ka bixin guriga wali wuxuu iska dhigay nin guriga ka baxay si uu Mayna halkaas uga soo saaro intaas kadib markuu soo weeraray ninka dilaaga ah waxay wajiga ka galisay bir ay gacanta ku wadatay markaas laakiin se maskarada uu gashanaa awgii waxba kama gaarin wajiga Mayna way iska celisay ninkan oo way iska tuurtay mar kale halkaas ayayna isku dayaysaa inay ka cararto laakiin se ninka wajiga soo duubtay dilaaga ah ma ahan mid ka haraya iyada wuuna daba socdaa markan waxaana halkan lagu tusay Mayna oo daashay oo isku qarinaysa geed gadaashiis si ay u nasato laakiin gacan ku dhiglaha ayaa mar kale goobtaas yimi meeshaas oo mugdi ah awgeed Mayna ayaa mar kale lugaa wax ka dayday laakiin si lama filaan ah waxay ka dhacday buurtan oo waxay ku dhacday badda ugu dambeyn dilaagan wuxuu galaaftay dhammaan afartii qof ee dalxiiska soo aaday wuxuuna dilaagu markan baabi'inayaa cadeemaha dilalka uu goobtaas ka geystay waxaanu guriga ka soo saaray dhammaan kaamirooyinkii taas oo si cad noo tusinaysa in ninkan uu yahay gacan ku dhigle iyo dilaaweyn sababta ah waa dilaaweyn oo raba inuu dad badan laayo ugu dambeyn filimkan halkan ayuu ku dhamaanayaa wadaawada haddaan nala soo gaartay ilaa dhamaadka fadlan nagu soo biir oo subscribe noo saar channelkan like na muuqaalkan saar si uu dad badan u gaaro mahadsanid